cabdi maxamed oo ah maariyaha xarunta Huduma Center ee magaalada Wajeer ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada bulshada u qabtaan iyo caqabadaha haysta. Waxyaabihii uu ka hadlay maanta waxaa ka mid ah sida tan maraan ku booqanay xarunta Huduma Center ee gudaha magaalada Wajeer. Magacaydu waa Cabdi Maxamed, waa maariyaha Wajiya Huduma Center. marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyaa Bayan TV oo invitation ka aan u dirnay oo naga ajiibtay oo suuxa noo imaatay center Huduma Center nooga imaatay sidee nooga qaada warbixin media sida ogtihiin waxay u dhaxayaan dadweynaha iyo dawladda u dhaxayaan Huduma Center Wajiya waxaa la bilaabay sanadkii 2015 ilaa hadda waa shaqaynaynaa from 2015 ilaa haddana waxyaalo badan ayaa noo suurtagalay waxyaalo badan obvious as an organization waxyaalo badanna ma noo suurtagalay waxaa jirta adeegyaal fara badan ayaan ka bixinaa Huduma Center Wajiya adeegyaasha aan bixin waxaa ka mid ah kibaandaha celiska Huduma waa laga sameeyaa waxaa kaloo bixinaa birth certificates iyo death certificates waxaa kaloo bixinaa adeeg loo yaqaano NTSA waxaa kaloo bixinaa adeeg loo yaqaano SHA waxaa kaloo bixinaa KRA servicesna waan bixinaa waxaa kaloo bixinaa social health groups registration of self help groups waan bixinaa caqabadan haysata waxay tahay dadweynaha ama bulshada reer Wajeer markay imaadaan adeega ay qaataan ama certificates ama documentations ay rabaan ay apply gareeyaan oo soo baxo waxa dhacdaa in badan dadweynaha ma imaadaan waxa arkaysaa kibandar aan soo celinay 2018 ilaa hadda qof uu imaaday malaha waxaad arkaysaa death certificate qofka markuu raadsanaya pressure-ga iyo orodka uu ku jiro maleysan kartid markuu soo baxana wax uu imaada malaha marka waxaan rabaa maanta dadweynaha Wajeer inaan u shaabixiyo documentations aan hayno oo dadweynaha ay u yimaadeen waxaan ka bilaabayaa kibandaan ka bilaabaa uncollected IDs Huduma Center Wajiya as of today wixii maantadan waxa waay 1891 waa 1891 ready and processed ID cards ayaan haynaa waxaan ka codsanaa dadweynaha inay u yimaadaan waxaa kaloo gacantayna ku jiro uncollected birth certificate waraaqooyinka dhalashada oo caruurta ayaa sidoo kale 1600 ayaa noo taala waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inay ayakana ay u yimaadaan birth certificate kaas ay qaataan waxaa kaloo maanta oo on haynaa uncollected death certificates waxa waaye dhimashada certificate dhimashada dadka inta dhimasho oo loo imaadin waayo waxa waaye waa 100 iyo waxa waaye 9 inta dhimasho oo loo imaadin marka dadweynaha Wajeer waxaan ka codsanayaa Huduma Center way furan tahay suuxii ilaa ay galabti inta adeeg aan in sheegnay ayaan dadweynaha aan siinaa waxaan ka codsanayaa reer Wajeer inay adeegyaasha ay u imaadaan waxaa kaloo ka codsanaynaa markay documentations ama certificates ay codsadaan inay sida oo kale sida ay u codsadeen ay u imaadaan ay qaataan maariyaha hadalkiisa sii wata ayaa baaqu diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala guud ahaan ismaamulka bangiyada iyo madaxda laga soo doortay ismaamulka sida xildhibaanada haweenka iyo maamulka ismaamulkan inay gacan ka geystaan hirgelinta mashruuca loo yaqaano Huduma Mashinani si adeegan loo gaarsiiyo qof kasta ku nool deegaanada ismaamulkani Wajeer jirta arrimo yar aan rabo dadweynaha inaan fahansiiyo horta waxaa jirta mar dhaxdaas dawladda ay bilowday kibaandaha inay celiska lacag laga yar qaata iyo small fees for application dollar qaat sida 1000 shilin birth certificate waxaan u maleynayaa inuu ahay 300 marka waxaan rabaa dadweynaha inaan u sheego kibaandaha lacagta lagu soo celin jiray 1000 shilin meesha kuma jirto waa laga bixi qadka waa laga bixi marka wax hadda loo dhihi karo malaha kibaanda la'aan aan hay ama lacag oo dhalinyaraan nahay ma haysti lacag aan kibaanda aan ku qaata ma haysti wax loo dhihi karo malaha anytime aw imaatid Huduma Center waa bilash qofka lacag ku weydiin manager xafiiskiisa wuxuu ku dhaxyaalaa Huduma Center ayuu ku dhaxyaalaa waa arki center manager ay qoran wadi imaaday waan dabagaleynaa Huduma Center waa corruption free zone meeshan waxa waaye is not back office meeshan waa front office waa meesha dawladda idaala
oo laga soo galaayo iridii dawladda laga soo galaayo adeega dawladda idaala laga soo galaayo marka meeshan wax corruption iyo waxa la dadaahinay ma lahan waxa kale oo jirta labada maalin system waa digital wixii zamaani oo fara in la qaada form Nairobi loo dira la soo celina 4 bilood 3 bilood ma jirto system waa camera laga qaada faraha meeshida laga qaada waa la dira isla markiiba server loo dira isla markiiba waxay gali production after 1 week 2 weeks way soo bixi marka waxaan ka codsanaa dadweynaha dawladdu way dadaalhaysaa idinkuna in dadaalhaysaa inay imaadaan ay nala shaqeeyaan waxa kale oo sheegi rabaa mashruuc la dhaho Huduma Mashinani oo Huduma Mashinani waa mashruuc ay qabata Huduma centers across the country inta Huduma center oo wadan ku taal hadda waa 59 Huduma centers waa program xaajita la Huduma Mashinani programkaas waxa waaye hadda Huduma arkayso Wajeer town lay ku taala sub county yal kuma taala iyo constituency yal kuma taala qofka waxa arkaa waas inuu ku yimaada uu yimaada adeego intuu yimaada wuxuu isticmaalaa transport wuxuu isticmaalaa loojo isticmaalaa wuxuu ku yimaada arbajahan all the way waxa laga yimaada Butte Bona so program waxa la bilaabay la dhaho Huduma Mashinani taas oo adeegi ayaa loo geynaa dadweynaha meeshii joogan tuulo walba sub county walba ayaa la tagaa midaas ayada ayaan rabnaa marka in laga caabiyo yaa naga caawin kara marka well wishes waxaan rabaa inaan baaq u dir NGO yaalka waxaan rabaa inaan baaq u dir the banks that all the institutions oo hagaajiyaan corporate social responsibility aan rabaa inaan baaq u dir ee naga caawiyaan hadaad fiiriso down Kenya hadaad fiiriso and most of these Huduma Mashinanis waxa caawiya kambaniyalka waxa caawiya institutions meesha ku yaala dad qaarkood CDF caawisa women rep office ayaa caawisa sidoo kale waxaan rabaa madaxda Wajeer inaan iyadan baaq aan u dir inay naga caawiyaan Huduma Mashinani staff ayaa la qaada Huduma Mashinani maahan in la xiraay maaha waa Huduma Wajeer in la xiraa maahan center manager together with some few staff ayuu qaadanaa adeeg walba laba saddex qof oo ka qaadanaya say u socdaan waxay tagayeen arbajahan ama waxay tagayeen hawaas weyn hal wiig ay joogaan meesha ayada xafiiska DC-ga ama kuwanjada la tagaa tenta la xirna dadweynaha way imaan adeeg dawladda idaala ay u baahan yihiin ayaa loo sheegaa maxamed kulmiye warbaahinta Abyad TV ismaamulkani Wajeer